xaflad ballaaran oo ay mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku daahfurayeen bilaabista shahaadiga labaad iyo saddexaad ee masterka iyo PhD ay maanta ku qabteen xarunta shirarka ee jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. xafladdaasi oo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud, wasiirro ka socda maamulka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka caafimaadka. salaadiin qurbajoog qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud iyo marti sharaf kale oo fara badan. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ayaa wuxuu sheegay in ujeedada xafladan ay tahay aqoon sare oo ay bilaabi doonto jaamacadda Camuud, taasi oo aan hore uga jirin jaamacadaha dalka, waxaana laga bilaabi doonaa jaamacadda Camuud barashada aqoonta shahaadiga ee masterka iyo PhD postgraduate studies. 2008 ayaan haddana fadhi kale halkan isugu celinay waxaan wartay marka quraankeena kariimka la baranayo culimada waa fadhiyaan jiscamuun lagu ma celceliyo dhowr iyo 10 sano markii jiscamo la dhameeyo tabaarig baa loo gudbaa oo marka tabaarig la dhameeyo la qadsaday baa loo gudbaa 2008 ilaa maanta manhaj samee policies-kii deji macallimiin raadi cid xiriir la soo xiro intaasaan ku jiray go'aan lagu gaadhay 3 sano iyo barka in ama 2012 ama 2013 hadii ay bayidaan in halkan ka hirgelino taa xafladan maanta aan isugu nimaday waa daahfurka barnaamijka postgraduate-ka oo marka hore ku bilaabmaya master's degree 6 kulliyadood oo master's degree bisha September biidillah samayn doona oo ilaa 17 takhasus samayn doona saan hore u sheegay aad iyo aad baan isugu kalsoonahay doorkan 6 kulliyadood laba ka mid ah PhD bay bilaabi doonaan biidillah bisha February sanadka soo socda ayay bilaabi doonaan ama kana cidii candidate ay soo diiwaangelinayso oo banaantahay concept noodun bay sii qori doonaan insha Allah. Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Jawhar oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isaguna madashaasi hadal ka jeediyay fariin u diray madaxda sare ee maamulka Soomaaliland. madaxweyne adiga xukuumaddaadu laba arrimood qorshe ka yeeshay mid waxa weeye waxbarashada qorshe ka yeeshay oo inamada jaamacadaha ka soo baxaya inamada ka soo baxaya shahaadooyinka digriga ka sii waaweyn ka soo baxaya haddii magaciisa saddexaad iyo shahaadada loo eegi waayo oo wax kale loo eego dawladnimadu way ku dumi doontaa wayna ku burburi doontaa taasi waa mid fariinta labaadi waxa weeye ummadan Soomaaliland Soomaali oo dhan waa isku dabeecad laakiin halka imika maanta aan deganahay qaabkan aynu u noolnahay oo ah inaynaan badana wax kala soo bixin beerana aynaan wax kala soo bixin waxay ummaduhu ku sheegaan ummadda noocaas ihi 30 sanadood buu cimrigeedu gaadhaa. waxa kale oo madashaasi hadal ka jeedisay Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo ka mid ah dhakhaatiirta mashaariicda caafimaad ee waaweyn ka fulisay Soomaaliland, waxaana tilmaantay in jaamacadda Camuud ay ku tallaabsatay horumar aad u ballaaran. sidoo kale wasiirrada kulankaasi ka soo qayb galay ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka Xuseen Maxamed Xoog, wasiirka wasaaradda cadaaladda Xuseen Axmed Caydiid iyo wasiirka beeraha Faarax Cilmi Geedoole ayaa iyaguna aad ugu ammaanay jaamacadda Camuud kaalinta ay kaga jirto waxbarashada dalka, waxaana soo dhaweeyeen qorshaha jaamacaddu ay ku bilaabayso aqoonta shahaadiga sare ee masterka iyo PhD-ga. sidoo kalena waxaa goobtaasi khudbad ka jeedisay wasiiradda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Samsam Aadan oo tilmaantay in mashruucan waxbarasho ee jaamacadda Camuud ku dhawaaqday ay tahay mid rajo weyn. runtii Camuud waxa weeyaan waa meeshii jaamacad laga bilaabo. mar haddii jaamacad laga bilaabay waxaynu filaynay inay wixii la bilaabayo waxbarashada iyadoo ay noqoto tii inoo bilowda inta dambana ay ku dayato. runtii way ku guuleysatay. Camuud waxay muujisay inay wax badan wadanka laga qaban karo haddii dadku isku tashado oo la ilaawo in dibadda la wax laga sugo inay wax badan qaban karaan bay runtii inoo tilmaameen tiiba dadkii kale oo dhan ku daydeen. runtii maanta jaamacado badan baa wadanka ka furan laakiinse kolley hormoodka ah ee hooyada waxbarashada jaamacadaha ahi waa Camuud. maantana tan aynu ka filaynay ugu horeysay oo aynu filaynay inay programyada postgraduate studies ay maanta iyagu u bilaabaan jaamacadihii waxa weeyaan hambalyo oo waxaynu ka filaynay waa waxay u taagan tahay Camuud waa waxay experience ku soo heshay waa waxay dadka khubarada jooga aniga macallimiinteedii baa joogo Saleebaan iyo Boqorriyo labadaba macallimiinteedii bay hayla foolimaha ku jiray marka aqoon lil muallim oo fihi tabjila kaada al muallim an yakuna rasuula. waxaan intaa ku
darayaa barnaamijka aynu maanta halkaan u firdaafuray ilaahay ay nooga dhigo mid qayb maamulka jaamacadda Camuud ayaa xusay in aqoontaasi ay ka bilaabi doonaan jaamacadda Camuud 6 kuliyadood oo kamid ah jaamacadda Camuud oo kala ah kuliyadda waxbarashada, kuliyadda ganacsiga, dhaqaalaha iyo maamulka, kuliyadda caafimaadka, kuliyadda kalkaaliyaasha caafimaadka, kuliyadda beeraha iyo deegaanka iyo kuliyadda sharciga iyo shariicada islaamka. sidoo kalena isku geynta shahaadiga PhD in doonta jaamacadda Camuud ayaa lagu sheegay 7, halka masterka ay bixin doontana lagu tilmaamay 17 iyo 2 diblooma oo u dhaxeeya digriiga iyo masterka. jaamacadda Camuud ayaa noqonaysa jaamacaddii ugu horeysay ee aqoonta masterka iyo PhD-da ka bilowday dalka guud ahaan gobolada lagaga hadlo afka Soomaaliga ee Geeska Afrika. Haashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.